Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa walaalkiin Cabdicasiis oo idin leh nabadgelyo korkiina Allaha yeelo. Walaal, marka hore waxaan kaa codsanayaa intaanu fiidiyowgan soo gudbin ka hor inaad janaalkayga subscribe saarto, sidoo kale ha hilmaamin inaad riixdo calaamadda digniinta ah si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aniga soo geliyo. Waa casharkeennii axkaamta qaybtiisii 6 ee safiinta. Maantana waxaan kaga hadli doonaa weyse-qaadka. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma salli calaa sayyidina Muxammedin wa aalihi wa saxbihi wasallim. Faslun haadaa kan faasilunkii wax kala bixiya waaye. Furuudul wuduu'i weyse-qaadka faralyaalkiisii 6 waaye. Al-awwalu midka koowaad anniyatu niyadi waaye. Wathaani midka labaad ghaslul wajhi wejiga dhaqidiisi waaye. Wathaalithu midka saddexaad ghaslul yadayni labada gacmood dhaqidoodii waaye. Macal mirfaqayni ilal mirfaqayni labada anqow labada xusul in lala qabo. Waraabicu midka afaraad masxu shay-in shay masaxidiisa waaye, shaygoo min arra'si madaxa ka mida. Walkhaamisu midka shanaad ghaslu rijlayni labada lugood dhaqidooda waaye. Macal kacbayni ilal kacbayni labada anqow in lala qabo. Wasaadisu midka lixaad attartiibu tartiibti waaye. Sheekhu wuxuu ku leeyahay furuudul wuduu' weyse-qaadka waxyaabaha waajibiyo hotoro waa in ay weysada kaa burtaa. Markaa weyse qaadayso waxyaabaha lagaa rabo waa 6 walxaad. Midda koowaad waa niyada, midka labaadna waa wejigoo la dhaqo. Wejigana duul iyo carada loo dhaqaa. Duulka waxaa laga bilaabaa tinta meesha ka soo baxda madaxa ilaa iyo lafdaanka aad dhaqaysaa. Tinta lagu yiri wax yar ku dar. Sidoo kale waxaa lagu yiri garka xoogaa ku soo dar ilaa dhuunta keen, maxaa yeelay hadhow waxaa laga yaabaa haddii aad tiri ani halaasaa liir halaasaa geeya in aad wax ka tagto. Sidoo kale waxaa lagu yiri gacmahan markaa dhaqaysa ilaa iyo labada xusul gaarsii. Xusullada ayagana waxaa la rabaa inaad ku soo darto ilaa garabka xatir inaad gaarsiisaa fiican. Maxaa yeelay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ummadeyda maalinta qiyaamo waxaan ku aqoonsahaa gacmaha ayay ka ifayaan ilaa meesha ay weyse-qaadka gaarsii jireen. Midka afaraad wuxuu ku leeyahay sheekha madaxa masaxidiisa waaye. Madaxa muga khilaaf ka jira. Madaahibta qaar waxay leeyihiin madaxa dhan in la masaxaa waajib ah. Qaarna waxay leeyihiin 4 meelood meel inaa masaxdaa ka kaafiyeyso. Laakiin imaamuna ash-Shaafici wuxuu leeyahay hal timba Allah ka dhigay haddaad masaxdo madaxa sidaasuu kugu masaxan yahay. Midka shanaadna waxa waaye lagu yiri lugaha dhaqidooda waaye. Macal kacbayni ilal kacbayni labada anqawaad ka gaarsiiso. Lugaha markaa dhaqaysana waxaa la rabaa labada qof gaarsiiya lagu yiri ku soo dar si ay hadhow kugu ifaan. Wasaadisu midka lixaad tartiibu tartiibta waaye. Tartiibta quraanka iyo axaadiista nabiga waa laga qaadaa. quraanka waxaa asaa ku sheego ku dhahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa qumtum ila salaati faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayni. sidaas oo isku kaa soo xijiya tartiib ugu qaadaysaa. axaadiista haddaan tagnana waxaa waaye ibda'uu bimaa bada'a allaahu. ilaahay meeshoo ka bilaaba wax walba. muga tartiibtan maas waa ka qaadan kartaa, quraankan waa ka qaadan kartaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soomaali Weyn Official waa janalkeeni, waa janalkoodii, waa janalkiini. Soomaali Weyn Official mar walba kala soco waxyaabaha ku saabsan diinteena Islaamka ah iyo sunnada nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayh goor walba iyo goor kasta iyo gelin walbaba.